السلام عليكم ودكتور موليد كودر dhamaantiin baydi salaamaya waxaan halkii nooga sii wadi doonaa casharadeenii barashada nafta iyo xanuunada dhimirka gaar ahaan qaybtii ku saabsanayd baaritaanka hore ee qofka dhimirka ah ama maartay wax ka sii yihiin lagu ogaanayo ee la yiraahdo mental status examination marka qaybta waxay noqonaysaa qaybtii ugu dambeysay waana qaybtii 7aad wixii inta ka dambeeya insha Allah taala waxaan sii wadi doonaa xanuunada ayaan gali doonaa insha Allah taala oo aan halkan idinku soo gudbin doona casharo ku saabsan marka maanta qaybtan waxaan ku soo qaadanayaa 7aad memory-ga iyo waxyaabaha kale ee maaragtay loo baahan yahay ama qofka xanuunsanaya marka uu dhakhtarka u yimaado ay tahay inuu ku ogaado waxa haya ama xaaladiisa taasoo aan idinku soo gudbiyay idinkan laftiina si aad u ogaataan waxyaabo badan uga ogaan kartaan si marka daba adila jaan qaadaan xanuunada marka aynu galno insha Allah taala marka haddaan hore uga socdo memory-ga waxa maaragtay ay ku dhaca khalkhalkaas memory-ga ku dhaca memory-gu waxa xasuustay waxa ay keentaa inuu qofku xasuusan kari waayo mar waxay keentaa inuu xasuusan waayo wixii markii hadii wax ku dhaceen ka soo qaad trauma kala ku dhacday ama dhaawac soo gaadhay ama sidoo kale wuxuu qofku waxa inta badan ku timaadaa maaragtay ama qofku inuu dhac soo gaadho lumitaanka xasuusto ama dhaawac qofku soo gaadhay ama qofku uu gaboobay oo asaasaqo dementia ku dhacday ama substance abuse waxa weeyaan qofku inuu daroogooyin iyo waxaas adeegsado ama isticmaalo ay iyaduna ku timaadaa marka badanaa laba loo qeybiyo amnesia la yiraahdo marka ay wax ka sii noqdaan maaragtay xasuusta taasoo loo kala yaqaano retrograde amnesia iyo anterograde amnesia marka hore taas loo soo koobaa laakiin waxaan doonayaa qaybtan inaan anigu si faahfaahsan idinku sheego maxay hadaba u qaybsantaa marka waxaan u qaybsanaa laba qaybood oo la yiraahdo dysmnesia iyo paramnesia in u kala qaybinaynaa khalkhal ku dhaca xasuusta marka dysmnesia waxa ay u qaybsantaa inuu qofkii waxa ku dhaco kala ka soo qaad qofkii inuu xasuustiisa aad u siyaado marka waxba ku dhacay ama uu xanuunsaday deetana waxa ku dhacay hypermnesia waxa la yiraahdaa hypermnesia waxa weeye in qofka xasuustiisa siyaado wax yar oo aan waxba ahayn oo waqtiga dhacay waqtiga xilliga inuu ku soo xasuusto maanta oo halkan maaragtay kaaga sheekeeyay wixii waxa dhacay ku soo xasuusanayo marka taana waxyaabo badan baa keena xanuuno badan sidoo kale waxa keena waxa la yiraahdaa manic syndrome waxa la yiraahdo markuu qofku ku jiro manic state wax badan buu xasuustaa oo aan maaragtay waxa la yiraahdaa sakaara ka biirsan bay Soomaalidu tiraahdaa waxa ahayn soo xasuusanaya noloshiisa dhan ku saabsan deetana waxa uu xasuusanaya waxay ka qulbayaan noloshiisa kala caadiga ahayd inuu maaragtay qofku wato waxa kale iyaduna iman karta oo ku jirta dysmnesia waxa la yiraahdaa hypomnesia hypo waa inuu qofkii hoos u dhacdo xasuustiisii taasoo qofkii marka hore waxba ka soo qaad u qori jiray maaragtay waxa qori jiray baan ka wada marka uu wax loo sheego marka waxay noqonaysaa qofkii inuu bilaabo inuu wax qoro taasoo ay qofkii ku keenaysa maaragtay dhibaato uu ku dareemay isaga laftiisa inay xasuustiisii hoos u dhacayso hadii wax loo sheego markiiba qalin buu qaadanaya awalna xamu qaadan jiray taasina waa taas waxa kale oo iyaduna marka aynu imanayna qaybaha kale ay sii wadaynaa ee maaragtay khalkhalka ku yimaada xasuusta waxa jirta labada ugu waaweyn ee loo qaybiyo retrograde-ka ee marka hore ku soo sheegay anterograde retrograde waxa weeye markuu qofku ilaawo markii wax ku dhaceen ama maaragtay xaaladan ku timi ku jira hadda wixii ka horeeyay oo dhan ma xasuusanayo ka soo qaad hadda weydiiso noloshiisa hore wax ku saabsan ma xasuusanayo qofkaas waxa la yiraahdaa retrograde haddii qofkaasi xasuusan waayo dhaawac soo gaaray ama xanuun ku dhacay ama wax kale oo keenayba xaaladdu ku jiraba wixii maaragtay ka dambeeyay hadii la weydiiyo ka soo qaad 2 bilood 5 bilood ka hor kale wax ku dhaceen wixii inta ka dambeeyo dhan baa la weydiinay wixii dhacay ama sanad ka hor hadduu xasuusan waayo waa anterograde baa la yiraahdaa anterograde amnesia labadaasna saasa loo kala qaybiyo iyaduna waxa jirto kale mid la yiraahdo fixation amnesia oo waa maxay waxa weeyaan qofkii in aanu qabanaynin waxba maaragtay ma weelaynayo aan dhahdo waxa hadda u sheegaysaa si kasta ugu sheegtay dhibaatadaas haysata
waxaana iyadu ku badanta waxa la yidhahdo maaragtay ku jirta Korsakoff syndrome xanuun la yidhahdo ama xagga ka sheekeyn doono oo qofku ilaa maanta wuxuu sheegaysaa ma qabanayo waad baxday haddaad weydiinaysa qof maan haybad ku horta xataa laga yaabaa inaan ku garanaynba taasna waxa weeyaan ma qabanayo qofkii maaragtay wax weelayna baan jirin tukala jirta progressive amnesia la yidhahdo iyaduna waa mid sii fidayso oo qofkii maanta iyo berri iyo saa dambe iyo bilka bacdi uu ka sii daraya marka dambeysa xasuustiisiiba aad u sii yaraanaysa inta haddaan halkaa kaga imaado qaybta hore ee la yidhahdo dysmnesia oo aanu kala paramnesia paramnesiadu waxa iyadu gaar u tahay xanuunka loo yaqaano ama marka la isku soo daro badanaa ay lagu arkaa Korsakoff syndrome xanuun la yidhaahdo oo badanaa ku dhaca dadka khamriga aad u caba ama khamrilayaasha noqda ee maartay kulli wadamada horumaray aan idhaahdee lama horumarine marka dhinac kale laga eego waa way waasheeneen dadkaas aad ku badan tahay oo waxaad arkaysaa qof ka dhacay nolosha oo suuqa jooga ama khamriguun cababes wax kale aan adeegsan ama laga yaabo suu isaga shaqaysanayso marka dambe suu si cabi u qabatimay bacdi markaas ku dhici kartaa qofkan Korsakoff syndrome marka Korsakoff waxa weeyaan qofkii inuu xasuustii ka lumayso inuu qof si kale asaas oo kale noqon karo oo maaragtay anigu waxaan garanayaa gabadh ay ku dhacday Korsakoff syndrome hayay oo ku jirtay dhakhtarkii markaan wax ka baranayay psychiatriga gabadhaas waxay koobsatay xanuuno sanadii waxyaabahan imkaan kan idinka sheegi doono oo dhan marka maxay paramnesiadu ama Korsakoff syndrome waxyaabaha ku jira maxay yihiin marka horta waxa keenaysa waxa weeyaan ay sababta u dhacaysa waxa weeye qof thiaminta ayaa qofka ka yaraanaysa mar ka dambaysa markuu cababa waa vitamin 1k ka bacdi waxa dhacay qofkii xasuusti ka lumayso tu hore iyo tu dambaba ka bacdi waxyaabo kale tan aan ku sheego waxa imanaysa pseudo-reminiscence wax la yiraahdo confabulation iyo cryptomnesia inta waa laga yaabaa in saddexda lagu arko marka hadda maxay yihiin pseudo-reminiscence waxa la yiraahdo reminiscence waxa weeyaan qofkiiba waxba xasuusanaya laakiin waxaasi muu sameyn marka soo qaad anu maraan dhakhtarka joogan ku arkay qofkeed weydiinaysa maanta waxay u haysataa gabadhaasba inay jaacadii tagtay hadda waa gabadh imika weyn oo muddo hore xanuunkan ku dhacay in badan bay dhakhtarka jirta waxay u haystaa qofkii inuu waxaan maanta sameeyey inay jaacadii tagtay inay ka timi inay fasalkaa tahay baad ku oranaysaa waxay ku oranaysaa fasalka labaad bay ku oranaysaa waxay wixii u haysaa sidii waagaas laakiin hadda u haysata inay tagtay kasoo qaad gabadh baa waxay oranaysaa haddaan gurigii ka imiyo ninkaygii iyo caruurtii baan qadidii usoo sameeyey waxaan way samayn jirtay waa waxa caadi u samayn jirtay wey laakiin hadda may samaynin waa wax hore marka wixii hore ayay maaragtay dub xasuusanaysaa oo moodaysa inay hadda samaysay iyadoo adiga hore marka hadda fadhi laga yaabaa inay 2 bilood 3 bilood 5 bilood oo dhakhtarka jiiftay aan ka socdo confabulationku muxuu yahay confabulation waxa weeyaan qofka oo xasuus marka wax la weydiiyay ma walba waxaad weydiisay dadka qofku wuxuu waayaa wuxuu kaaga jawaab dadana isaga wax keensanaya waxyaabo kale aan jirin ama dhici karinba ayuu qofkii ka sheekeynaya confabulation baydan la yiraahdaa marka taasna waxa weeyaan inuu qofkii meelihii uu waayay wuxuu kaga jawaabo ama inuu isagu wax isku dardarsado oo sidaana wax kuugu sheego waxaan halka inaan jirin ba ama ka soo qaadayna dhici karin ba aanu soo galo maaragtay cryptomnesia waxa la yiraahdaa cryptomnesia tan waxa weeyaan qofkiiba wuxuu xasuus imika soo qaad gabay buu qaybay ka bacdi xaaladana ku dhacday wuxuu qofkii moodaya wuxuu hadda xasuusan karaa in galaad gabaygii oo kale ama wixii uu ka bartay cid kale dadku wuxuu oranayaa anaaba keenay waxaan anigaaba keenay oo gabaygii waxa laga yaabaa inuu si fiican u hayay waagaas ka bacdina waxa marka qofka khalkhalka cryptomnesia keenaya waxa weeyaan waxa ku dhacaya khalkhalka garashada waxaan ma waxaaga mise oo adigu aad lahayd ba cilmi aad adigu lahayd mise cilmi aad meel ka akhrisatay saas marka qofku u moodaa oo yiraahdo aniga gabaygan tiriyay aniga waxana wix kasta uu yaqaanay laga yaabo ama cid kale ka bartayba inuu isagu u qaatay inuu isagu waxaan keenay waxa laga yaabaa in meel ka dhageystay xataa waxaas
deetana wuxuu qaadanayaa inuu isagu waxaan yidhi hadalkan aan ka socdo. waxaa jirta iyaduna ecamnesia waxa la dhahdo oo ah qofkiio oo xasuustu iminku wax arkay wixiiba isu sawirayaba oo moodayaba inuu waa hore waxa la dhahda iyada deja vu, inuu waa hore arkay. imika soo qaad hadda ayay igu soo dhacaysaa kasoo qaadano saa imika maaragtay muuqaalkan idinkula hadlaya inaan u moodo inaan beri hore sidan oo kale ay tan oo kale dhacday halkan oo fadhiya maaragtay xaaladu noocan oo kale ay sawirmaysa. marka maxaa keenaya waxa maskaxdaadaba koobi ka samaynaysa xaaladda ku jirta waxay kaaga dhigaysaa horta waxaad ku aragtaa isfiidinaysa. marka marar badan bay dhacdaa deja vu dadka caadigaana waa ku dhacdaa iyadu. marka iyadana markaa taas markaan ugu soo daray waxaan imika maaragtay intaasaan kusoo koobayaa qaybtaas ah memoryga maadaama aanan doonayna waqti badan idinkaga lumiyo maaragtay oo aan doonayna soo koobo. marka waxaan ku dari lahaayun qaybtan iyadu ah maaragtay waxaa iyadana baaritaanada mar haddaan doonaha ku joojiyo qaybtan baaritaanka hore qofka soo kale waxaa la baaraa waxaa la dhahdaa alertnessiga qofka iyo consciousnesskiisa la eegaya inuu ma soo jeedaa qofkii maaragtay qof ma yahay dee waaqic la haysta ama miir qaba ayaan oranay laakiin aan baxsanayn qof jooga kale qofku inuu yahay. memory waa laga sheegay waa la eegaa concentration attentionkiina waa qofkii waa la eegaya oo qofka inuu maaragtay waxaan uu leeyahay fiiro gaara waa la eegaya waxaad weydiinaysa ama noloshaba. sidoo kale waxaa jirta waxa la dhahdo maaragtay qoritaankaas sidoo kale waa la weydiiyaa in qofku wax qori karo. sidoo kale abstract thinking waxa la dhahdaa jira oo iyadana maaragtay qofka la weydiinayo ama sidoo kale waxaad weydiinaysaa mahmaah maxaa looga jeedaa wada oranaysaa dad mahmaah weydiiso haddii qofki markiiba kuu garto dee waad garanaysaa marka inuu fikirkiisii kii caadigaa yahay. markaas allahuma salli calaa maxamed. sidoo kale waxaa jirta orientationka in qofka la weydiiyo qofkani ma garanaya meesha joogo waqtiga sanadka waxaasoo dhanna waa la weydiiyaa. marka adigu waxyaabaha badan kale ee la weydiiyey ee mental state examination ku jira way fara badan yihiin. marka adigu sidaan kusoo koobayaa wixii dambe insha allah waxaynu halkan igala socon doontaan xanuunada dhimirka si toosa marka wixii dambe idinku soo gudbin doonaa insha allahu tacaala. aad baan dhammaantiin idin salaamayaa. waxaan idin rajaynayaa maaragtay wax ka faa'iideen la wadaaga asxaabtiina si ay iyaguna uga faa'iidaan. share dhaha haddii aad xagga maaragtay youtube-kayga la socoto oo aan soo geliyay isagana maaragtay subscribe baad oran ilaahay markii. xaggan maxaa la oran jiray facebookana haddii aad la socotona waad la socotaa haddii kalena follow baad oran ama like ama maaragtay allahuma salli calaa maxamed wax kastoo dee aad u aragtay inaad maaragtay haddii aad u aragtay inaad tahay inaad la socoto dee waad la socon. aad baan idila salaamayaa. wassalaamu calaykum.